Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muuqaalka maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa maxay BBC-du u weerartay Abu Trika. Maxaase kalifay in BBC-du ay weerartay Abu Trika? Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Intaanaan u gelin wixii ay u weerartay BBC-da Abu Trika, marka hore waa kuma Abu Trika, maxaase lagu haystaa Abu Trika? Abu Trika waa laacib hore oo Misri ah, wuxuuna falanqeeye u yahay beIN Sports. Abu Trika asbuucii hore la soo dhaafay, isagoo falanqeynaya mid ka mid ah ciyaaraha Ingiriiska wuxuu yiri sidaan wada ognahay Ingiriisku waxay bilaabeen asbuucyada la soo dhaafay barnaamij ay ku taageerayaan khaniisiinta ama dadka isku jinsiga ah isku taga. Barnaamijkaas oo ay ku dhaqan geliyeen dhammaan ciyaaraha horyaalka Ingiriiska. Ciyaartoyda kabtanka calaamada kabtanka waxaa qasab inay ka dhigaan kalarada ay adeegsadaan kuwa khaniisiinta ah ama dadka isku jinsiga ah isku taga. Sidoo kalena xariga kobaha ee ciyaartoydu ay xiran yihiin waxaa laga dhigay kalarkaas. Arrinkaas oo Ingiriisku ay ku taageerayaan dadka khaniisiinta ah. Abu Trika isagu marka wuxuu yiri لان حصل لنا موقف وانا بفرج امبارح على مباراه ليدز وبرايتون. فطبعا انا جنبي بنتي فبتقول لي ايه الالوان اللي لابسينها دي؟ فلازم انت طبيعي بما ان كره القدم بتخش كل بيت لازم تشرح وتبقى صادق. طبعا اللي بيحصل بهذه الظاهره الشذوذ الجنسي لازم يبقى فيه تربيه وفيه تعليم للشباب الطالع. maalmaha ka mid ah anigoo fiirsanaya ciyaar ka mid ah ciyaaraha Ingiriiska oo asbuucyada la soo dhaafay waxay la fiirsanaysay ciyaarta gabar yar oo aan dhalay. Waxay igu tiri gabadhii aan dhalay aabo maxay ka dhigan tahay kalarka ciyaartoyda ay wataan, yacni calaamada kabtanka kalarada badan ay leedahay maxay ka dhigan tahay. Wuxuu yiri Abu Trika su'aashaas waa iga naxday oo aan ka naxay, cunugta yar been uma sheegi karo, haddii arrinkan aan u sharxana ma fahmaydo. Sidaas darteed waxaa qasab nagu ah inaan ciyaalkeena u sheegno waxa ay ka dhigan tahay calaamadaha ay wataan. Arrinkaas markii uu sheegay Abu Trika waxaa weerar ku soo qaaday dhammaan wargeysyada iyo saxaafadda Yurub oo dhan, reer Yurub iyo qaar ka mid ah Carabta. Warbaahinta reer galbeedka asbuucyada la soo dhaafay oo dhan waxay ka hadleen Abu Trika, waxayna ku eedeynayeen in Abu Trika uu ku boorinayo in la naco koox dadka ka mid ah oo ah kooxda iyagoo ay rabaan oo ay taageerayaan. Qaar ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee Ingiriiska sida The Guardian iyo Independent iyo qaar badan oo ka mid ah warbaahinta Carabta oo dabcan iyaga wax ka meersada waxay weerar indhala'aan ku qaadayeen Abu Trika. Reer galbeedka mar walba ku hadaaqa xorriyatul qowlka. Reer galbeedka warka Nabiga sallallahu alayhi wasallam in la caayo oo caag laga sameeyo iyo in diinta Islaamka la caayo inay tahay xorriyatul qowl, waa iyaga naftirkooda kuwa u arka hadalka Abu Trika inuu yahay weerar ka dhan ah koox dadka ka mid ah. Arrinkoodu wuxuu u eg yahay ama wuxuuba yahay dhabtii sida dhabta ah, xalaalun calaya wa xaraamun calayka. Anigana waa ilii ogol yahay, adigana laguma ogola. haddii aan u soo laabno arrinka BBC-da qaybteeda afka Carabiga waxay leedahay barnaamij lagu magacaabo Trending. Barnaamijkaas oo ay kaga hadlaan mar walba wixii markaas social media ama baraha bulshada wixii barnaamijka ee trending-ka ah ee ka jira iyo sidoo kale barnaamijyada qabsada warbaahinta ama mowduucyada warbaahinta qabsada. Barnaamijkaas waxaa soo jeediyay nin Suuriyaan ah oo wariye ah oo lagu magacaabo Ahmed Fakhuri iyo gabar kale oo aanan aqooniyada. barnaamijkaas inta badan waxaa ku caana Ahmed Fakhuri wuxuu kaga hadlay barnaamijka Abu Trika ama qadiyada Abu Trika ayuu kaga hadlay oo maadaama ay mowduucyada uu ka hadlay ka mid tahay mowduucyada trending-ka. barnaamijka Abu Trikana uu trending ah maalmihii la soo dhaafay. barnaamijka trending sida caadada u ahayd ee Ahmed Fakhuri u soo jeedin jiray waxay ahayd in barnaamijka marka hore uu kaga hadlo wixii jira dhacdada uu ka hadlayo, kadibna uu soo qaato aaraa'dii ama ra'yiyadii dadku ka dhaheen kuwaas oo ay Twitter-ka ku soo qoreen. inta badan wuxuu soo qaadan jiray ra'yiyada qofka ka soo horjeeda ama fikrada qofka ka soo horjeeda iyo fakirada isaga taageersan. Laakiin barnaamijkan markii uu ka hadlay Abu Trika wuxuu sameeyay arrinkaas arrin ka duwan. Wuxuu soo qaatay ra'yiyada ama qoraalada dadku ay Twitter-ka ku qoreen kuwaas oo ka soo horjeeda Abu Trika ama dhaleecaynaya Abu Trika. dhammaan ra'yiyada uu soo qaatay ama tweetyada uu soo qaatay waxay noqdeen kuwa ka soo horjeeda Abu Trika. maxaa ku qasbay Ahmed Fakhuri iyo barnaamijkiisa in namadkii ama qaababkii hore ee lagu ogaa inuu bedelo markii ay timid qadiyadu Abu Trika. tweetyada ka soo horjeeda Abu Trika ama dadka dhaleecaynaya Abu Trika sida dhabta Twitter-ka markii la fiiriyo waxay 100% ka yihiin dadka taageersan. marka loo fiiriyo dadka dhaleecaynaya dadka taageersan waxaa badan 100% dadka taageersan oo marka loo fiiriyo dadka taageersan
dadka dhaleecaynaya waxay noqonayaan 100% dhammaan dadka ka hadlay qadiyadda Abu Trika. markii Abu Trika uu weerarka la kulmay waxaa Twitter-ka ka bilowday hashtag lagu taageerayo Abu Trika. hashtag-gaas oo ah kulluna Abu Trika, dhammaanteen waxaan nahay Abu Trika. hashtag-gaas Abu Trika lagu taageeraya maalmihii la soo dhaafay oo dhan wuxuu trending ka ahaa ama uu ahaa hashtag ugu sareeya ee trending ka ah Masar, sidoo kalena wadamada Carabta ee kale ee Khaliijka wuxuu ka ahaa 1 ama 2 ama wuxuu ku jiray 5 hashtag ee ugu horeyda ee wadamadaas trending ka ah. arrinkaas oo daliil cad u ah in dadka taageersan Abu Trika 100% ay ka badan yihiin dadka ka soo horjeeda ee dhaleecaynaya Abu Trika. qof walba oo muslimana waxaa qasab ku ah inuu taageero Abu Trika maadaama arrinka laga hadlayo uu yahay arrin islaamku uu xarimay oo arrinkaas dadka isku tagay ama khaniisiintu waa arrin xaraam ah, waana mid ka mid ah waxyaabihii loo halaagay qoom dhan oo lagu magacaabo qowm Luud. لا تناسب العقيدة بتاعتنا صحيح. ولا تناسب ديننا. طبعا. ده أكبر عقوبة حصلت في التاريخ وذكرها القرآن قوم لوط. BBC-da iyadana waxaa laga leeyahay sidaan wada ognahay Ingiriiska. arrinkuna wuxuu ku saabsanaa horyaalka Ingiriiska oo dhaleecaynta waxaa loo jeediyay horyaalka Ingiriiska maadaama warbaahintooda ay tahay oo ay la mid tahay BBC-du, The Guardian iyo Independence. waxay ku qasban tahay BBC-du maadaama BBC-da laga leeyahay inay ku hadasho afka Ingiriiska oo ay matasho wadanka Ingiriiska. قال تعالى أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بستغرب حاليا من الناس اللي فطرتها سليمة زي محمد أبو تريكة، بشوف إنه بيتحارب من الناس كثير، فأنا بضم صوتي لصوته. muuqaalka maanta intaas ayuu ku eegyahay tan intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan kaga tagayaa amaana Allah.